بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. waxaan marka hore mahad gaar ah u celinaynaa Allah subxaanahu wa tacaala isuu kaay keenay beedkan qurux badan ee sharafta badan ee masjidka arbaca rukunka. midda kale waxaan mahad gaar u celinaynaa hay'adda hayaa heritage iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka oo isaga kaashaday barnaamijkan qurux badan ee ah ahamiyadda iyo ilaalinta masjidaha qadiimiga. horta marka la yiraahdo masjid qadiimiga waxyaalo badan ayay ahmiyad gaar u leeyihiin shacabka iyo deegaanka ay ku nool yihiin, gaar ahaan qowmiyadda banaadiriga. waxay u tahay lama taabtaan aan la taaban karin aasaarta iyo dhaqanka. waa mid ay ku faanaan ummad kasta waxay leedahay aasaar iyo dhaqan aan la taabtan karin. waxaa jira masaajid badan oo taariikh leh. waxaa ugu horeeya masjidkan marwaas taariikh oo leeyahay masjid jaamac xamar weyne. waxaa leh masjidka arbaca rukun, masjidka abu xuseenka oo loo yaqaan xaaji cali. waxaa kale dhismo leh ama taariikh leh masjidka jaamaca shamgaani oo hadda sidii loo sheegay uu leeyahay dhismo gaar ah oo taariikh leh. waxaa kale jiro masjid la yiraahdo sheekh romaan bacalabi oo taariikh ah oo soo maamuli jiray boqortooyada romaanka. taariikhdooda iyo waxooda ayaa laga helay dhagax aasaarta ah. kadib waxaan ku dhisnay masjidka dhinaca qiblada, waa laga arki karaa waxyaalo badan ayaa leh. annaga haddaan nahay maamulada iyo culamaa u diinkii gobolka banaadir waxaan codsanaynaa in qof kasta ama qof alla qofkii rabo inuu masaa'idaha ama goobaha taariikhda uu dhiso, laakiin uusan baabi'in naqshadii iyo xadaaradii aasaartii uu lahay. sababta aan u leeyahay waxaan aragnay hadda masjidka arbaca rukun waagii hore suu ahay iyo had si ay tahay farqi ayaa u dhexeeya. midda kale waxaa jira masjidka hadda oo jaamaca waxaa ku yaala masjidka malaayiga agtiis malaayiga agteed waxaa la yihahdaa masjid abu xaseen. waxaa waaye dadku waxay usoo doontaan caafimaad. wuxuu leeyahay biyo ceel ah. ceelkaas dadka biyahay ku qaataan waa ku kharas baxaan, laakiin sidii dhismihii hore uu ahay looma dhisin. naqshadii waa laga bedelay. waxaan codsanaynaa in la ilaaliyo aasaarta iyo dhaqanka ay leeyihiin masjidaha qadiimiga ah. ummad kasta way ku faantaan. waxaana ugu baaqayaa wasaaradda awqaafta iyo akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta dhaqanka in ay xil iska saaraan sidii loo ilaalin lahay masaajidaha qadiimiga. annagana haddaan nahay culamaa u diinkii garab buuxda ayaa idin nahay, waa idinla shaqaynaynaa. ebelbe wasaaradda waa la shaqayn jireen, akadeemiyadeena waa la shaqaynaa, haddana waa lasii shaqayn doonaa haddii ilaahi yiraahdo, maadaama uu waqti gabaabsi yahay. insha allah wabilahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.